السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كيغا واني السلامي ونورة channel كيغان إن شاء الله waxaa kusoo dejin doonaa fiidiyoyaal ku saabsan af ingiriisiga iyo af Soomaaliga ku sharaxaya waliba qofkii raba inuu hadda bilaabo oo ingiriisiga hadda inuu barto inuu bilaabo sida ka bilaawi lahaa meelayaasha ka bilaawi lahaa darsiyaal ku saabsan ingiriisiga insha Allah iyo grammar-yaal baan soo gelin doonaa. maanta fiidiyogeena waxaan ka hadli doonaa qofka hadda raba inuu ingiriisiga bilaabo erayaasha ka bilaawi lahaa iyo grammarka ugu muhiimsan hadda aan bilaawno darsigeena. sida ay fikradeeda ahay qofka raba inuu ingiriisiga bilaabo erayaasha inuu ka bilaabo inuu barta ugu muhiimsan. hadda qofka hadda raba inuu bilaabo waxa ugu muhiimsan hadda ugu koobaad waxa waaye b wax laga wadaa marka rabtid in ka hadashid waxa aad tahay mesela waxa aad sameysid iyo marka rabtid dadka inay ku bartaan. am, is, are, was, were marka ka hadlaysid ee macnaha la tahay. am, is, are waqtiga hadda laga hadlaa waqtiyaasha hadda marka rabtid ka hadashid waqtiyaashaas isticmaalaysa laakiin wixii oo la dhaafay oo maadiga ahaa waxaa isticmaalaysaa was iyo were. مثلا مثال ahaan marka rabin aan iska hadlo oo dadka inay bartaan marka rabin inaan jumlad sheego anigana waxaan ahay muallimad waxaan dhahayaa aniga muallimad baan ahay I am a teacher. mise ayada waa طالبة waxaan dhahayaa she is a student. يعني be, am, is, are waxa aan ahay waxa ay dadka ay yihiin marka rabin iska hadlaan ala isticmaalaa. was iyo were waqtigii oo la dhaafay marka waxyaasha aad sameyn jirtay iyo waxa aad tahay marka rabtid ka hadashada la isticmaalaa. يعني مثال ahaan marka rabin inaan ka hadlo aniga muallim baan ahaa I was a teacher يعني waan ahaa hadda kama hadlay waan ahaa was al isticmaala mise were. mise you were a student adiga waxaad ahayd student يعني hadda student ma tihid. b waxaan dhahnay bidaayada marka isticmaalayno waxaan dhahnay anaka waxaan dhahay marka rabnaa ka sheegno b ba isticmaalna sidoo kale b waxaan sameeyno marka rabnaa ka hadalno waan isticmaali karnaa. b ba isticmaalaysa hadda kadib plus ficilka iyo ing ba lagu darayaa. misaal ahaan I am speaking aniga waa hadlaya marka rabtid inaad isticmaashid marka rabtid inaad tiraahdo aniga waxaan sameynaya I am speaking ficilkana eng ba ku daraysaa. مثلا مثال ahaan oo kaleeta you are listening adigana hadda idinkana waa imaqleysiin misaal ahaan. mise waqtiga oo la dhaaf marka rabtid inaad ka hadashid waxaad isticmaali kartaa was mise were aan dhahnay you were listening aan dhahaysaa. يعني waqtiga hadda marka rabtid inaad ka hadashid am, is, are ba isticmaalaysaa waqtiga la dhaafay was iyo were iyo ficilkii طبعا waxaad isticmaalaysaa ing baa lagu daraysaa. hadda b baan ka hadalnay b plus verb oo ing ku jiro. hadda waxaa ka hadli doonaa do, does iyo did. do, does, did maxay yihiin sida loo isticmaalo maxaa waaye. do, does, did waxaa loo isticmaalaa marka rabtid inaad ka hadashid waxyaasha aad maalin kasta sameysid oo waxyaasha aad maalin kasta ficilyaasha aad rabtid inaad sheegtid oo maalin kasta sameysid. misaal ahaan waan igu sharxi doonaa. do, does, did marka rabin inaan ka hadlo waqtiyaasha aan wax kasta maalin kasta aan sameeyo. misaal ahaan aniga iskoolka kadib markasta gurigaan aadaa marka rabin inaan dhaho jumla saas marka rabin inaan dhaho waxaan dhahayaa I go home after school. يعني iskoolka kadib markasta gurigaan aadaa. laakiin marka rabin inaan dhaho aniga hadda rabaa inaan aado guriga I am going baan dhahayaa. do jumlada ma gasho markay tahay positive laakiin markay negative tahay way soo baxdaa. so negative markay tahay idana nooc kale bay leedahay wayna soo baxaysaa laakiin markay ay positive tahay jumladan kuma arkeysiin negative markay tahay jumlada lagu isticmaalaa. hadda negative ahaan ugu sharaxo mesela nafs jumlada aan nii sheego marka le I go home after school. negative marka rabin aan sheego I don't go home after school baan dhahayaa. hadda does aan ka hadalno does waxay la timaadaa she, he, it marka rabna ficilka jumlada oo positive ka marka rabna inaan ka hadalno مثلا مثال ahaan ugu sharxo he goes home baan dhahayaa. يعني ficilka s baa lagu darayaa laakiin marka rabna negative inaan ka sheego waxaan dhahayaa he doesn't go home. saasna يعني negative kana way ku soo baxaysaa iyadana sida do camal. يعني negative ka waa la isticmaalaa positive kana jumlada kuma soo baxdo laakiin ficilka s baa lagu darayaa.
هذا do does وان كهذا do does وقتيجا أو عاديجا ما كست الاستعمال لو استعماله هذا did أنك شيء كأنه did وحلو استعماله وقتيجي لدافع for example نقول شرح دونا did مكا أو جملة أيضا positive كا ما صوب بحذا وجملة نيجاتيف كا ويصوب بحذا لكن جملة positive كا ما كيصوب بحيث فعل كوحور من قضاء فعل كا أو لبعض يعني for example وحاجة watched على ده مثل worked فعل ك حال كيس لبعض الله استعماله يعني فعل كحال كيس كبعض مستعمال فعل كحال كيس لبعض أو استعماله دونتا for example هذا أني شرحه ما أنت حاربين عنده ما أنت تلفزيون كافير صدي وحده هسا I watched TV today ما أنت تلفزيون أن فير صدي ما كاربين هذا عنده أني ما أنت تلفزيون ما فير صد ما داون I didn't watch TV today بعد هسا يعني نيجاتيف كجملة النيجاتيف ك ويصوب هسا did هذا وقتي مستقبل كأن كهذلنا فعل كمستقبل كما كربنا كهذلو أنتوا قبلنا حلو استعماله will إيو be going to plus verb فعل كيسكوبات will إيو be going to دحضو هذا فرق واحدة باكرة لكن مرة مو بهنين إنا برتين هذا لو هذا اسكم بيد إنا يهين وفكره مثلا وحاربين عنده أنيجا وحام وكباري دونا سيدا جملة وسمين كرا وحندها يا I will teach you مثل I am going to teach you عندها يا هذا أن كان كهذا كان وحلو استعمال مكابتنا كهذا الشيء وحياش أتسميني كرتد for example I can do it أده كرتا أنيجا وحان وسمين كرا مثل ودبالن كرا I can swim هذا must إيو have to أنك هذا النوع must you have to ده حوجا فرق بسيط باكرة لكن هذا اللي ما شرح دونه هذا سكمل إنهين وفهمه have to must وحلو استعماله واختياش مكارتينا كهذا الشيء وحان ومهم وحان وإذا تسميسا عمل إلا تهاي مثلا هذا أني شرحه هذا تليفون باكو يمد قف باكو صاوعي هذا كده وادي مسي وحابتين أقدرك إنه كنت هذا إنا بحق باهنا هذا كارتا I must go مثل I have to go هذا كارتا يعني وأباهنا هذا إنا بحو يعني وإنا هذا بحنا عنده بحوايو مشكلة بعد عدون تعمل إلا معنى تهاي هذا ماي أنك هذا النوع ماي وحلو استعمال مكان تربتين هذا يمكن مع عمل إلا معنى تهاي مثلا قف باكو يري أنيجا ميل ما يراعي كارتا أنا وحابتين لو كنت هذا يمكن إن كراعه I may go هذا كارتا يعني يمكن إن هذا يمكن إن آذن عمل إلا معنى تهاي هذا أنشود كهذا النوع شود حلو استعمال مكاربتين هذا مثل مكاربتين قف وشيكتد wax oo tusaale oo fikradaada ay tahay mesela كمثال ahaan must you have to عمل ma aha yani waxyaasha qasab ku tahay kaleeta ma aha laakiin waxyaasha oo fikradaada tahay ma karabtina ka hadashid mise waxyaasha oo adeeh rabtid tan waa aniga tusaale ahaan ana ku sii عمل ay la macno tahay hada misaal ahaan nagu sharxo you should study yani u baahanta inaad baratid عمل ay la macno tahay هذا أود كهذا النوع وود وحلو استعمال كاربتين التلهديد وحياش أنيجا يعني أنت أقبضان وحلو استعماله وحياش أنا حقيقة إيه أو خيال كأ مثلا حكو خيال أنا وحاس أن ربي لها وحاس أن صمالي لها عمل مكاربتين التلهديد مثال أهان صاحبكنا أجاريجاس أركي مكاسويري أنا أجاريجاس كلها توا إفسل لها I would buy this car يعني جاريجان كلها توا إفسل لها هذا أن العقد لها عمل يعني وحياش أنكو خياله يوم كاربتين كهذا الشيء I would الاستعماله يعني would بالاستعماله مثال أهان could كان أو فعل كيس قديم كواي مثال أهان أنيجا وحنا هنا كان وحياش أن سمين كرو مكاربين كهذا استعماله وحياش أن سماني تشري مكاربين كهذا could باستعماله يا could I could swim يعني أنيجا وارد بالن تشري مثل I can swim بعده هي لكن هذا عندها I could swim يعني وان the balance شري اللي معناتها هاي مثل وحارب عندها مثلا أنا جوان أردي شري سفي أنا أردي شري سي دخسان أردي شري وحدها كرا I could run very fast يعني وان سفي عن من أردي شري اللي معناتها هاي فيديو جانا انتاسو أها وادكم هاتسنتهين داوشة وعن إن شاء الله فإذا كهشين يعني قفك هذا ربا إنه إنجليزي قبلاوه إنه هكان كبلاوه ويلي بنا فيديو كأنه كبلاوه إن شاء الله ورجينا يا كان كبلاوه كرتا إن شاء الله وانا فيديوهات كلنا وسودتشين دونا
waad ku mahadsantihiin mar kale. Please like iyo subscribe ka naga ilaawina. waan salaamay. comment-kan noo soo qora insha Allah fikradiina hada darsigana cajibiyay iyo darsiyaasha aad sugi kartiin iyo fikradiina ii soo sheega. waad ku mahadsantihiin mar kale. waan salaamay. maca salaama.